waxaan idin sheegay saddex arrimood oo aniga shakhsiyan aan kala kulmay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala todobada qodob baa kaga baxaya marka afartaas waa ay halka saddex baa ay u jeedina ul gaalan joogi jiray masaajid baaka ayaan fadhiyi jiray masaajidka daris waxa la ah islaan gaalada ah oo daa 70 jir kor u dhaaftay masaajidka daris la ah islaam baa masaajidkii soo qaraacday wadaadadii bay u timid waxay tiri heesaha masaajidkan ka baxa in la duubaan doonayaan wadaadadii baa soo eegay haween ku tukanaa meesha heesaha islaamtu ay sheegayso wadaadadii baa dib u kala shakiyay halaba ka masaajidka xidhneed aad u xasabaysaa may islaantii baa leeyahay waa la waraysto haji maxaa dhacay baa leeyahay maxaad markaasay tiri xilliga saacadii bay sheegaysaa صلاة الفجر صلاة المغرب صلاة العشاء صدق جير ماشهم وحكب حبة الهيس مع بكب حبة يدوب بيتلي طاقة إنت سو استاجو أي أن دقي استابيتلي وكقبوا بابيتلي وحما أخرجوا مسلمات معها عربي ما تقانو ورك شقكم ماله صوم أفنش بيكو هذا الساعة بس كنت صوم الله يسك شقكم ماله فينا حتى markaasaan ogaan xaajiyadu wadaadu maxay doonaysaa wadaadu in quraan doon tahay baan ogaan markaasaan wariya ugu cod macaana rag wax akhrinay markaasay basaarideeda Abdul Basit qoloyin kale Marookaan yiraahdeen mid xaqooda ka akhriya Suudaanid yiraahdeen mid xaqooda ka akhriya wadaad Soomaali Sheekh Cabdirashiid Al Suufi loo duubay markaasaan ku wada Soomaaliga Sheekh Cabdirashiid loo duubo cajeedir baan u duubno saantii loo geeyay iyadu maxay u haysataa maxay iska dhageysataa لابد صدق سنة مري صوم مري حاجيدي ودادي أنت مساجك تري أي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل وقت هذه مرخاتبة أنا وأنجوب جوجوها صور عظمها كان وذيك هيسا كلابا شركة اللبات مثل هذا بعيد من لكن اللبات معكوش إسنا إسلام أيام مساجدك الباب دي سنتي سو استاكتي أي المية يصور الشيء المية رشين تبجد كيرا أي تمساجك سو جلسة بتر أرض أطغى صوم مسلم كي يرى بالله كان وإما يروشين تبجد كير إسلام بندون إن النقود كسان سير كم الله والله صادر يوا وحورن دون العيال في بكاء وصنا يعني ورواد يرتعد ورد جديد تبجد لما قف كل مسلمان هذا عين هذا هوستنا واحد كيل على النساء دقيقتي كنا يانو كاب الحين بعد ذلك وحاصله سي الله لا سي أديش markaasaan aaw waalidka bal waalidka hooyadeeba albaabka dibadda joogto bit u yeer baa kul hooyada xijaab yar bay soo xiratay saajkii bay soo gashay inanka warkiisa waan hayaayo waa oo raayde adiga maxaa ku helay baa ku adiga laftaada ku soo dir hawsha waxay tiri dhageyso quraankii noo dhan afinish baan ku akhriyay quraanku waa tarjumnaa afinish baan ku tarjumay alxamdulillah rabbil alamin waan akhriyay hal arrin baa yacjabisay beetel waxaan doonayaa inaan kaygu sida idinka oo kala caruurtiina markaan weynaado anigu indada noqdo guriyaha dadka waaweyn inaanu igu tuurine saad idinku hooyooyinkiin iyo aabayaashiin u haysaan inuu ii hayaan doonayaaye ha muslimu yadna halkaas waqadaa rabbuka allaa tacbudu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana ay xaajiyadaas wadaadaasi islaamkii ka qaadatay taana marag baan ah sheekada saddexaad ee kaga baxaya waxa weeye dhulka Mauritania tagay Sheekh Maxamed Ismaaciil oo kitaabka Quraanka ay dhameeyay iyo mufassiriinta Sheekh Maxamed Suufi oo halkan fadhiya ayaa rabayadna inay tabshiir iyo bishaaro inay u noqoto Mauritania tago mid yaroon dhalay baan halka geeyay 6 bilood baan soo fadhiyay wadaad baan hoos fadhiistay xadiidkii dheeraaye Jibriil Maxamed uu yimi sallallahu alayhi wa sallam maxaytolay mal islaam mal iimaan ayaa 6 bilood la soo dhigay hargeysa markaan mid waxaan yiri war hal xadiis waa Mauritania kala mid kale iga dhageysta nin baa la ii sheegay sheekha konton sano tafsiir masaajidka akhrinay 50 caam imikana boqol kor u dhaafay sheeka culimada iga sheekeeyay markaa waxay yiraahdeen odaygaasi waxay yiraahdeen sheekhaasi konton sano kitaabka Ilaahay fasirayay masaajidka miyiga ku yaalo kitaabka Ilaahay ku dhigay imika odaygii waa gaboobay murqihii baa dabcay maro dhulka taalu noqonaya isku dhacaya waa isku dumaya mar allaala marka la aqimo salaada
laba uu dhalay laba caruur uu dhalo ag jooga ayaa intay garbaha qabtaan odayga ayay salaada u quminayaan markuu salaada xidho sheekhaasi Allahu akbar markuu yiraahdo ninkii cadka ahaa ma nuuxsanayo ilaa salaamu calaykum yiraahdo markaasaan ku anigu sheekha ilaa la ii geeyo soo arko safar dheer baan galnay sheekhiyo waxaan u tagay cad ah oo dhul fadhiya oo dhaqdhaqaaqaynin 50 caamana mufassir ah mar allaala marka salaada la aqimo qad qaamati salaa ayu laba ay dhaleen laba uu dhalay hareeraha ay qabanayaan mar allaala markuu safka ma tukinayo isagu ma duula tukanaya mar allaala markuu safka Allahu akbar salaada xidho waxaad moodaa si dadka kale xubin dhaqdhaqaaqaysan xituli kuma jirto markuu salaam naqsaday salaamu calaykum salaamna halkiiba ku dhaco waa la qaadaya labadii inamood baan ku wari war xaalkiisa iga warrama aabahay wuxuu nagu yiri buu yiri kitaabka ilaahay buu ilaahay igu xafiday buu kitaabka aan kontonka sano dhigayay ayuu ilaahay xubnaha igu xafido maskaxdaydu way zuushaa buu yiri oo maankaygu wuu baxaa ilaa xilliga salaada mooyaan ilaahay quraanka inagu anfaco ilaahay quraanka kii wixii uu bedelay ilaahay subxaanahu wa ta'ala hay nooga dhigo masaajidka sheekhi dhisa Allah u naxariisayo ubadkiisiiba isagana Allah ha barakayo ubadkana Allah ha barakayo masaajidka aniga si gaar u fadli igu leeyahay 5 sanaan halka joogay sheekh Xasan Cabdisalaam barakallahu fi umrihi wa fi amwalihi wa fi awladihi isna waa u ducaynaya maanta ma arkahaye marka sheekh maxamed halka uu sii wado isku bahbaa halka waan ka dhadhawaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh